sanadkii 2015 dalka Nepal waxaa ku dhuftay dhulgariir aad u ba'an kaasoo dhaliyay falcelin bini'aadamnimo oo ballaaran. Markii xaaladda degdeg ah laga soo kabsaday, mid ka mid ah shaqaalaha gargaarka ayaa ogaaday in hal-abuurayaasha bulsheed ee deegaanka ay ka maqan yihiin shirarka qorshaynta ee muhiimka ah. xilligaas goobaha hal-abuurka bini'aadamtinimada waxay si gaar ah saldhig ugu ahaayeen wadamada waqooyiga oo aad uga fog jiidaha hore ee falcelinta, halkaas oo xallinta dhibaatooyinka muhiimka ah ay dhab ahaantii ka dhacayeen. kooxo dalka Nepal oo isbedel doona ayaa go'aansaday inay carqaladeeyaan qaabkaas. iyadoo ay kaashanayaan World Vision, kooxo bini'aadamtinimada ka shaqeeya iyo hal-abuurayaal maxalli ah oo xirfad leh ayaa abuuray Nepal Innovation Lab, halkaas oo hirgeliyaasha falcelinta, ganacsiyada curdunka ah, shirkadaha tiknoolajiyadda iyo hal-abuurayaasha bulshada ay ku wada abuuri karaan ayna ku taxliilin karaan xalalka caqabadaha ugu adag. sanadkii 2017 Vision Lab waxay dhiirigelisay isbahaysiga hormuudka daneeyayaasha arrimaha bini'aadamtinimada iyo hal-abuurayaasha bulshada si ay u bilaabaan hindise wadajir oo lagu magacaabay Response Innovation Lab RIL. RIL maanta waxa ay noqotay shabakada ugu weyn ee ku sugan goobta shaqadu ka socoto, taasoo aan faa'iido doon ahayn, leena xarumaha hal-abuurka bini'aadamtinimada kobciya iyo nidaamyada hal-abuurka, dhanka kalena dardargelisa wax ka barashada howlgalyada dhanka hal-abuurka. sidoo kale fulinta mashaariic lagu xalinayo caqabadaha bini'aadamtinimo ee soo noqnoqday iyadoo loo marayo hab deegaanka ku salaysan, hab isku xiran oo loo dhisay in si degdeg ah loogu horumariyo xalalka saamaynta leh. shaqaalaha RIL iyo la howlgalayaasheeda waxay si joogto ah ula socdaan una muujiyaan daneeyayaasha hal-abuurka bini'aadamtinimada, taas oo u sahashay hay'ado kala duwan inay helaan saaxiibo la shaqeeya oo la howlgala, iyagoo isu keenaya daneeyayaasha muhiimka ah si ay u fahmaan baahida loo qabo xalal cusub, fududaynayana iskaashiga ka dhaxeeya hirgeliyaasha, hal-abuurayaasha iyo deeq-bixiyaasha si loo tijaabiyo loona taxliiliyo xalalka. taageerayana mashaariicda hal-abuurka taasoo loo marayo nidaamka bixinta tababaro, agabyo iyo hagayaal kuwaas oo shaacsan lagana heli karo ilo furan, sidoo kalena ka caawinaysa la howlgalayaasha inay abuuraan caddaymo si wax looga barto socdaalka hal-abuurka. guud ahaan nidaamka bini'aadamtinimada waxa uu ku jiraa marxalad aan horay loo arag, waxaana la adeegsanayaa hal-abuurka iyadoo la tijaabinayo xalal kala duwan, sidoo kalena la maalgashanayo awoodaha nidaamka ka jira deegaanka. waxaan aaminsannahay in falcelinta bini'aadamnimo ay u baahan tahay inay horumarto si ay u dabooli karto baahiyaha beritoole. adigu sidoo kale ma aaminsan tahay in hal-abuurka bulsheed uu wax ka bedeli karo adduunka? hadday sidaa tahay, nagula soo biir qoridda cutubkeenna xiga ee sheekadeena.